السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada akhyaarta sharafta leh ku xiran channelkeena YouTube-ka. maanta waxaan rabaa inaan isla fiirino ama aan ka hadalno wax loo yaqaano trading roadmap. wax walba la sameynayo waxay qurux badan yihiin inaad samaysatid roadmap loo isticmaalo ama steps inaad u samaysatid oo ay ku kala calaamaysan tahay marka koowaad, marka labaad, marka saddexaad ilaa iyo step-ka u socotid. waxaan ku base gareynay Q1, Q2, Q3 ilaa iyo Q4 steps-ka la isticmaalayo oo suuqan aad ku fiirin kartid. map ahaan waa u isticmaali kartaa. presentation-kana waa idin la wadaagi doonaa qaybta description-ka Discord-ka yaala nagala soo xiriira, meesha ka soo follow garay, meeshaan soo dhigi doonaa qaybta. waxaa ka helaysaa knowledge-ka ama qaybta PDF-yada la soo dhigo, resource note ay ku qoran tahay meesha ka helaysaa. trading roadmap-ka marka waa maxay? habka loo sameynayo. tusaale ahaan waxaan isla ognahay suuqan concept-iga hadda ugu badan ee la isticmaalo inuu yahay concept-iga ICT, smart money. labadaas hadda ugu badan, especially ICT marka waxay leedahay dhowr istaraatiijiyad, qof walba mid baa u shaqeysa. marka adoo midii kuu shaqeysa inaad ku dheganaatid way qurux badan tahay. sidoo kale waxa anaga mar walba inoo wanaagsan bias waxa la calaashan inaan fahmi karno suuqa jihada uu isaga aadayo isbuuclaha, bisha, maalinka, saacadaha iyo sessionskaba. haddii isbuuca isniinta ka bilaawanayo ay ku dhamaanayo jimcaha aad ogaatid biaska jihada uu yahay suuqa isbuucan sel haduu yahay, fursado waxa u heli kartaa inaad suuqaas postage walba ama zone walba uu imaado aad ka raaci kartid, fursadaasna aad ka faa'iideysan kartid. si taasi ay u dhacdo maxaad u baahan tahay? waxaan u baahan tahay inaad faham guud ka haysatid qaabka suuqa uu u dhisan yahay, okay, ama qaabka uu u shaqeeyo. qaybtan waxaan iskula fiirin doonaa Q1-ka high time frame BDRs. high time frame-ka waa isla naqaanaa, waa monthly, weekly, daily, 4 hour iyo wixii waxa way 4 hour ka koreeya. inaan calaashaan heli karna ama aan fahmi karna high time frame BDRs-yada ama key levelada meelaha suuqa postage-ooyinka ay ka laaban karaan ama ay ka kacayaan. saa la socotid basaskoo kale markii la raacayo postage waxaa jira la aado baska waqtina uu imaado, waqtina uu ka dhaqaaqo. Soomaan saasoo kale BDRs waxaa lahaa waxyaalo suuqan loogu isticmaalo magacyo loo baxsaday, kuwaasoo haddii suuqa uu imaado laga ganacsado ama laga faa'iideysto fursadaas. sidoo kale waxaa waaye waxaana loo baahan yahay in laga helo meel high time frame, meel sare in laga helo. tusaale suuqa sida caadiga markuu dhisan yahay, haddaan isla eegno suuqa markuu dhisan yahay sorry qalinkeena soo qabo. suuqa tusaale meesha high waxaa la meel sare, Soomaan lowna waxaa la meel hoose. simple. suuqa marka wuxuu u dhaxeeyaa labadan. meeshan waxaa la meel sare, meeshan waxaa la meel hoose, ama waxaa waay saqaf iyo sagxad. qeyr Allah si erayadii terminology ustaad macallin uu bixiyo kamid ahaa. Soomaan marka tusaale suuqa markaan meeshan uu joogo, suuqa iskama socdo saan meel uma aado, saana meel uma aado, laakiin muxuu sameeyaa si uu meesha sare u aado? muxuu sameeyaa suuqa inuu dhaqaaqo kadib uu soo nasto, haddana uu dhaqaaqo kadib uu soo nasto, haddana uu dhaqaaqo kadibna uu soo nasto, haddana uu dhaqaaqo, meesha sidaas uu ku aado. laakiin ma jirto suuq intuu inta ka kaco iska soconayo toos meeshan u aadayo, never, ma arkaysid. marka si taas aysan u dhicin, adigu waxaa la rabaa fahamkaaga inaad ku fahantid qaabka uu u shaqeynayo. tusaale hadda waxaan rabnaa intaan isla fiirino, qalinka noo soo celi. meesha noogu sareysa waaye, meeshaana meesha noogu hooseysa waaye, okay. suuqa wuxuu ku dhisan yahay xisaabaad, qaab xisaabaad uu ku dhisan yahay. tusaale dhaqaaqa markuu dhaqaaqayo 100% aan ku base gareynaynaa. dhaqaaqay uu kacay, intuu ka kacay meel hoose, qaybtan hoose uu suuqa ka kacayo waxaa loo yaqaanaa discount. meeshan sare uu suuqa gaarayeen korkan uu gaarayeen waxaa loo yaqaanaa premium. simple waa intaas. meeshan waxaa la discount area, meeshan waxaa la premium area. suuqa markuu discount joogo waa la buy gareeyaa, markuu suuqa premium joogana waa la sell gareeyaa. marka dhaqaaqan inta ka kacayo inta aadayo miska kacaya ama dhaqaaqaya waa may. tusaale suuqa haduu dhaqaaqo wuxuu ku qasban yahay
tusaale intuu ka kacay wuu soo dhaqaaqay waxaa qasaba inuu intuu dhaqaaqay 30% 20% 10% 40% 50% uu soo laabto soo laabashadaas uu ku soo laabanayo meeshan percentage ku jira meeshan oo 10% 10% 20% 30% 50% ilaa 60% 70% ilaa suuqa markuu dhaqaaqo bartaan hore kama imaanayo inuu dhaqaaqo uu soo dhaca ma dhacayso ma jirayso qaabku ku dhaqaaqaya wuu kacaya wuxuu soo laabanaa 10% haddana wuu kacaya meeshii hore uu sii jibinaya haddana 20% ha soo laabto haddana wuu sii kacaya haygi kor ha jibiyo 30% ama 50% waa marka adi qaabka ula falgalaysid soo laabashadan meesha la rajeynayo ama expectationka ee tahay inay ka laabato magacyada iyo waxyaalaha laga raadiyo iyo fursadaha sida looga bartaa waxaa loo yaqaanaa BDRs clear waa umaleynaa hadda way caddahay BDRs wax laga wado bari kuma gabanayso adu marka waxaa u baahan tahay BDRs kaas la sheegayo oo soo laabashadaas iyo waxa sadda aan ka sheekeynayno ina ka faa'iideysatid maxaa ku qasban tahay si meeshan kora aad u aadid suuqa inta ka soo kacaya tusaale ahaan uu soo laabtay intuu imaaday haddana wuu kacay meeshan uu ku soo laabanaya waxa laga raadiyaa waxa la order block fair value gap breaker block indication block bla 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 magacyadaas oo dhan isku soo duub suuqa markuu soo laabto zoonkan uu ku soo laabto haddana waxaa la fiiriyaa lugtan kacday dhaqaaqan 100% soo laabashada nasashada inta ku soo laabatay 50% inay ka soo hoos martaa la rabaa 50% inay ka soo hoos martaa hadii 50% ay ka soo hoos marto macnaheedu meel wuxuu ku joogaa discount area ama meel jeep meeshaas oo aka buy gareyn kartid ilaahay saamaan the more discount ay heshid the more risk reward kaaga uu sii yaraado oo bato calaashan riskigaagan uu yaraado reward kaagan uu bato calaashan inta risk gareynaysid ay yaraato inta helaysid ay badato ay tira badato marka adu mar walba waxa ilaashataa aad ogaataa zoneska marka la soo calaamay kana waxa la key levels kuwana waxa la key leveladan marka si ku ogaanaysa waxa way high time frame ina tagtid a high time frame key levelada soo calaamaysato ayoob waxaan rajeynayaa marka concept good ina ka haysatid qaabka uu u shaqeynayo iyo sida ay tahay price move from premium BDRs to discount RS علشان بريسكا wuxuu ka dhaqaaqaa meel premium meel saru ka soo dhaqaaqaa haduu kor ka soo dhaqaaqo maxaa ogtahay discount inuu soo socdo haduu discount ka dhaqaaqo maxaa ogtahay inuu premium u socdo simple suuqa waa intaas high time frame ku base gareynaysid MMXM model maxaa ugu sheekeyn doonaa waxaa laga soo gaabiyay market maker buy ama sell extan ay u taagan tahay model Allah waa market maker sell model ama buy model ayaa loo yaqaanaa marka waxaan isla fiirin doonaa how does the market move qaabkee suuqa ayuu ugu soo dhaqaaqaa from BDRs to BDRs calaashan suuqa BDR ka soo tagay oo BDR kale u socdo intaas waa suuqa wuxuu sameeyay BDR ka soo tagaya wuxuu raadsanayaa BDR kale BDR ka kaca hoose wuxuu raadinayaa BDR sare BDR wuxuu ka imaanaya sare wuxuu soo raadsanayaa BDR hoose intaas waa sidoo kale marka waxa ku base gareynaysa time iyo price-ka xilliga dhaqaaqa suuqa iyo waxa isku fiirinaysa price-kiisa marka waxa muhiim ah ina understanding when to look for your MMXM model to occur waxa muhiim ah price and time ka raadinaysid market maker sell model ama buy model ka inaad ku base gareysid time iyo price-ka xilliga uu maray ilaa waxa jirto afar session oo la trade gareeya jirto suuqa afar session haddii aadan aqoon u lahayn dib ugu laabo YouTube ka soo ogow afarta session waxa la lahaa Asian session London session New York PM iyo New York AM symbol ama waxa la lahaa afarta session xilliyada suuqa ay dhaqaaqyada sameeyaan xillina wuxuu sameeyaa suuqa accumulation oo loo yaqaano consolidation ama sideways oo taqaanid hadba علشان سوق meeqa wajiyo sameeyaa saddexda wajiyo sameeyaa suuqa maxaa waay suuqa mar uu rafanayo oo isla exameenayo kan waxa la suuqa accumulation face koowaad ama Asian saa u taqaanid haddana suuqa mar uu sameynayo dhaqaaq oo loo yaqaano manipulation
okay phase kan iyo maruu suuqa soo sameynayo distribution saddexdan phase marka saddexda phase ayaa waxaa loo yaqaanaa waxay ka dhacaan 4 session oo suuqa shaqeeya ama 4 xilli oo suuqa dhaqaaqi u leeyahay xilliyada marka suuqa la trade gareynayo anaga inta badan waxaan trade gareynaa London iyo waxaan trade gareynaa New York London iyo New York aan trade gareynaa London iyo New York na sababta lagu dooranayo maxay tahay waa sababta waxay leeyihiin momentum xoogan suuqana si xoogan ayay u dhaqaajiyaan alaashan ganacsiga markaas uu fiican yahay in laga dhex ganacsado laakiin Asianka suuq lacag badan ma taalo oo alaashan accumulation ku jira rafasho iskaga jira marka adi waxa ku fiican suuq oo ku dhex yaalo meel suuq weyne magaalo ee afartan koone ee magaalada la iskaga imaanayo lagu ganacsanayo iyo suuq xaafad ku dhex yaalo isku mid ma noqonayo Soomaan mar walba waxa socod fiican oo wanaagsan suuqa inuu ku haysto meelaha highway la iskugu yimaado VIB marka businesska marka sameysanaysid waxa la eegataa ama la fiirisaa meesha uu ku beegan yahay Soomaan xilliyada marka suuqa momentumka uu leeyahay ama xamaasad uu leeyahay waa xilliga London iyo New York labada xilliyo la trade gareey marka waa qaabkaas entry model kana waa soo ogaan doonaa qaabka uu yahay waxa la isticmaalaa qaabka aad ka soo aragtay time frame BDRA-ga aad ku soo base gareysata time markaas entry model kaaga qaadanaysa adoo marka follow the large players and trade like the market makers waxaa la rabaa inaad raacdo talaabooyinkii ama road mapka ay ku sameeyeen hedge fundska ama dadka suuqa dhaqaajiya bangiyada qaabka ay u trade gareeyaan inaad fahantid tacticada isticmaalaan iyo qaabka aad ula jaan qaadaysid the more you try the more you gain hadda isku dayidid alaashan aad ku dadaashid inaad fahantid hadhow waa la qabsan kartaa ku fududaanaysa okay marka conceptigaas meeshaan ugu bixi doonaa hal aan u dul istaagayna high time frame maxaa la marka Q1 high time frame BDRA meequu ka kooban yahay simple waxa aragtaa meeshaan order block BDRA allaha indication block BDRA allaha breaker block BDRA way fair value gap BDRA all the high and low waa BDRA simple BDRA da lagu sheegay waa intaas marka inta fiiri all the previous high iyo all the previous low alaashan hoosti ugu dambeysay iyo korkii ugu dambeeyay calaamaysatay meeshan sare waxa ka dhaxelaysan marka suuqa sel u soo qaadanaysid ayaa waxa la lahaa BDRAs meeshan marka waxa ka dhaxraadinaysa maxay tahay fair value gap breaker block indication block iyo order block okay tusaale inta waxa aragtaa suuqan fiiri dhaqaaqu sameey uu kacay boom markuu dhaqaaqay uu soo laabtay laabashadan uu soo laabtay meeshii hore ma ku soo laabtamay tusaalaan suuqan dhaqaaqan uu dhaqaaqay lugta kacday soo laabashada lugtan inay la ekaato la maro 100% inay soo laabto ma at least 50% 70% 60% meesha ugu badan soo laabashada 60% markay ku taagan tahay meeshan fursad aad ka raadanaysid haddana waxa waay meeshaas laga qaataa BDRA-ga laga raadsada meeqa BDRA meeshan ka raadsan kartaa marka waxa ka raadsan kartaa fair value gap waxa ka raadsan kartaa breaker block waxa ka raadsan kartaa indication block waxa ka raadsan kartaa order block oo hadda marka tusaale waxa aragtay suuq socdo oo la soo laabto 60% candle-ku ugu dambeeyay dhaqaaqan buyga oo high-ga hor jibiyay candle-kan tusaale aan waxa aragtay 4-5 candle oo kale isku xigto buy oo distribution sameey suuqa si xoogan u dhaqaaqay markay dhaqaaqeen high-ga inta ka soo kacay oo soo laabtay high-ga ugu dambeeyay xooga lagu jibiyay Soomahan hadii la jibiyo waxa sugaysaa dhaqaaqan intuusan kicin candle-ka ugu dambeeyay wuxuu noqon karaa marka madow noqona Soomahan selka selkaas calaamaysanaysa kaas waxa la lahaa order block BDRA high time frame ka hadda ka soo heshay kan waa sidoo kale isagana mitigation block alla mitigation block isagana waxa calaamaysanaysa dhaqaaqan meeshii ugu dambeysay la soo mitigate gareeyeen in balance ha noqoto ama maxaa la lahaa meel laga sar maray ha noqoto ama breaker ha ku noqoto wuxuu kamid yahay BDRAs ku kamid yahay ina isagana waxa way ka dhexraadsatid waxa la arki doonaa isagoo live practical meel la soo mitigate gareeyay alaashan meel imbalance ka jira oo la soo mitigate gareeyay meel faaruq ahayd oo la soo buuxiyay simple breaker block-na waa kana isagana waa kan dhalo hal uu noqon karaa labana uu noqon karaa waa meel breaker block waxa la lahaa meel alaashan xoog lagu jibiyay ama order block oo la ixtiraami waay
simple order block wala ixtiraami waay oo laga baxay hadana kor looga baxay hoosna looga baxay waxa la and breaker block hadii lagu soo laabto meeshaas sugaysa boom soo laabashada marka dhaqaaqan fiiri uu kacay intuu ku soo laabtay boqolkiiba meeq uu soo laabtay boqolkiiba 30 oo kale soo laabtay meesha uu ku soo laabtay time frame breaker block waaye kadibna boom qaabkaas uu qaadatay haddana waxaa aragtay saddex kandal oo isku xigto oo waaweyn oo baadigooda iyo waxooda isku xiran kandalka koowaad iyo kan labaad iyo kan saddexaad inta u dhaxayso faaruq waaye kana waxaa la marka inay waxaa la rabaa kandal walbo meesha uu ku xirmay kan kale inuu ka furmo markii isma soo gaarin meeshan space ku dhaxeeya waxaa la fair value gap intaan isku soo wada duub maxaa la BDRs clear way soomaan all the high all the low hadii meesha ugu hooseysa la imaado suuqa muxuu sameeynaya uu kacaya hadii meesha sare la tagana muxuu sameeynaya suuqa uu soo dhacaa simple waa inta maxaa ku qoran marka historically speaking suuqa isaga waxa ay taariikh ahaan u hadlay ama wuxuu suuqa sameeyay isaga ku sheegay price is likely to move after tapping into the any of these BDRs suuqa uu dhaqaaqaya hadii uu taabto mid kamid ah BDRs kan uu meel key level high time frame uu kugu beegan yahay oo sax otherwise known as key interest zone hadii kale waxay noo noqonaysaa meelaha anaga aan key level zone ka aan calaameysanayn ama loo yaqaano BOI oo laho point of interest meesha fursada laga gaadayo kale waxa aragtay let me draw hal mar aan ku sawiro waxa aragtay labadan meel aan calaameysano waxa aragtay suuq soo socday oo meeshan soo maray okay suuqa muxuu sameeyay uu dhaqaaqay intuu maraya meeshan soo maraya waxa calaamaysanaysa meeshan sare meeshana waxa la key level waxa sugaysa suuqa inuu meeshan imaado adoo fiirinayo dhinacan zone kan waxa ka xigo inta maxaa ka xigi karo breaker block waxa ka xigi karo order block waxa ka xigi karo fair value gap waxa ka xigi karo mitigation block waxyaalaha soo dhan dan maxaa sugay suuqa inuu meeshan ku soo taabto taabashada meeshan uu ku soo taabanayo maxaad ogtahay haduu inta imaado suuqa inuu si direct meeshan u imaanayo okay marka waxa la rabaa in asaas u fahanto key levels hadii inta uu soo taabto hadana waxa fiirinay meel space banaan oo BDRs ilaan suuqa maxaa lagu dhahay move BDRA to another BDRA suuqa haduu BDRA ka soo dhaqaaqo intuu imaanayo another BDRA waaba inta symbol waxaan rajeynayaa in concept yar aad ka haysatay faham guudna aad ka qaadatay okay aan ka socono marka waxa la inta fiirso qaabku uu dhisan yahay shaxda sawirka always buy from the BDRs inside discount hadaa suuqa buy gareynaysid waxa ka buy gareysaa tusaale ahaan simple waxweyn maam suuqa tusaale ahaan discount maxaa la discount area price qaali ahaa oo calaashan la gaday shay ama iPhone oo kala soo iibso la gaday lacagtiisa 1500 oo kale ahayd markuu soo baxay brand new uu ahaa company-ga 1500 ku soo saaray waxa ku soo beegmatay xili oo 10% ama 20% ama 30% discount ay ku jiraan price kaas raqiis way Soomaaliya markii horena price ka rasmiga meeq uu ahaa 1500 uu ahaa hadii 1500 lagu dhaay marka discount 30% ku jirto fursada u arkaysa waa iibsanaysa way fiican tahay fursadaas in la iibsado Soomaaliya price-ka waxa la iibsadaa markuu discount uu joogo discount area markuu joogo price-ka wuxuu ku qurux badan yahay in la iibsado calaashan la buy gareeyo hadii premium uu joogo marka fiiri price-ka premium maxaa waa qaali waa ay sheegan Soomaaliya markuu qaali yahay waxa ku qasban tahay marka inaad iska iibsid si aad ugu faa'iideysatid Soomaaliya marka waa intaas markuu raqiis yahayna waa la iibsadaa markuu qaali noqdana waa la iska iibiyaa meeshan marka maxaa aragtaa calaamadan yellowga ama jaalaha ay aragtid suuq dhaqaaqay waaye dhaqaaq uu sameeyay intuusan dhaqaaqan xoogan oo dheer uusan kicin lugtan dhaqaaqan kandalkii ugu dambeeyay ee salka ahaa calaamaysanay waa symbol ya tusaale marka calaamayna order block uu nooyahay sidoo kale inta kandal kale ku jiro breaker block uu calaamaysan marka aad waxa calaamaysanaysaa dhaqaaqan ilaa high meesha swing low ilaa swing high ga isla calaameynay vip kana isticmaalay meeshan ma aragtaa 1 to 0 waa calaamaysay qaybtan sare waxa la lahaa gaduudku ugu qoran premium qaybtan hoosena discount la tusaale price-ka marka uu dhaqaaqay mar walba uu discount joogo waa fursad buy laga faa'iideystaa suuqa fiiri marka qaybtan uu jooga qaybta uu joogo intee waa discount area waa intuu imaado waa ka faa'iideysto uu kacay
haddana wuu soo laabtay intuu joogaa qaybta uu ku jira fiiri kalarka uu ku dhex jiro discount waay haddana waa buy garaysay haddana wuu soo dhacay wuu sii socday ilaa ay premiumka uu ka aaday mar walba uu marka discount joogo suuqa maxaa waay fursadda buy ugu faa'iidaysanaysaa waxaad sugaysaa calaashaan waxaa jirta qaacido la don't buy suuqa markuu joogo calaashaan don't buy low don't buy high iyo don't sell low suuqa markuu sell joogo low uu joogo ha sell garaynin markuu suuqa high joogana ha buy garaynin high markuu joogo soo sell garay low markuu joogana buy garay waaba intaas marka adoo ku beeganayo BDRs-yada hadda lagu soo baray marka dhaqaaqa waxaa fiirisaa 50% hadduu ka soo hoos maro boom buy garay sidoo kale inta maxaa kugu qoran marka fiiri always sell lagu dhahay from BDRs inside premium mar walba premium ka dhexdiisa hadaa fursad sell raadinaysid premium ka dhexdiisa ka sell garay adoo fiirinaya order block breaker block fair value gap mitigation block iyo wixii lagu soo baray any kind wixii lagu soo baray dhan dan maxaa fiirisaa structure-ada fiiri suuqa waxaa aragtaa qayb premium inuu joogo meesha VIP-ka uu isbedel hadda fiiri maxaan dhahnay swing low to swing high calaameena haddana waxaa calaameynay swing high to swing low marka waxaa fiirinaya boxka suuqa uu ku dhex jiro kadibna qaabkaasaan ula macaamilaysaa insha Allah I hope waxaan rajaynayaa concept inaad kaysatid qaybta Q2 aan isla fiirinay MMXM model oo loo soo gaabiyay market maker sell ama buy model okay meeshaan marka waxaa waay calaamada aan dhisnay qaabka aan ku dhisnay iyo sida uu u dhisan yahay isla fahmi doonaa maskaxda kaliya noo furo insha Allah waxaa aragtaa market maker sell model ama buy model aan hadda dhisnay meeshaan calaamada noo calaamaysan waa high time frame mar walba waxaa la fiiriyaa high time frame arrays with low time frame market maker sell model high time frame oo haddii aragtid BDRs low time frame waxaa ka fiirisaa market maker sell model ama buy model tusaale aan high time frame waxaa kasoo aragtay premium aan iraade BDRs fair value gap ama suuq oo high low la soo jibiyay ama suuq oo order block uu ku joogo high ama sell uu ku low time frame oo soo degay waa ka faa'iideysanaysaa simple inta fiiri marka maxaa calaameeyay meesha ugu sareysa suuqa high premium array iyo waxaa calaameeyay high discount array qaybtan hoose waa discount qaybtan sarena waa premium tusaale marka premium maxaan ku dhahay markii la joogo suuqa waa la soo sell gareeyaa soomaan ha fiirso suuqa waxaa aragnay inuu suuqa sameeyay meel high time frame uu soo taabtay markuu soo taabto ku darsay istiraatiijiyadaada waxa isticmaalaysay inta marka waxaa la fiiriyaa inuu suuq market structure shift uu ku sameeyo kadibna uu ku soo laabto meel order block hadduu kugu soo laabto ama meel BDRs noocay rabo ha ku noqdo ha noqdo breaker block order block wixii kale ha noqdo then waa soo sell gareynay haddana fursadda ilaa laga imaanayo selkaaga inteed ka soo faa'iideysanaysaa ilaa discount laga imaanayo discount markii la imaado maxaa dhacay meeshaan maxaa soo dhamaaday sell side card qaybtii selka soo dhamaaday wajigii selka soo dhamaaday soomaan maxaa bilaabanay wajigii buyga intee laga buy gareeyaa marka suuqa markuu discount joogo suuqa intuu imaado intuu taabto meel discount okay markuu taabto suuqa muxuu sameeyay boom wuu kacay structure uu jabsaday uu soo laabtay intuu ku soo laabtay meel fair value gap order block kadibna markuu imaaday waa la buy gareeyay mar walba oo aragtid tusaale aan suuqa dhaqaaq uu sameeyay nasashada BDR raadso haddana sii buy gareey haddana nasashada BDR raadi sii buy gareey ilaa laga gaarayo high time frame BDRs all the high waa ilaahiisa Soomaan marka kan waxaa la lahaa buy side curve kan waxaa la sell side curve wajigan waa sell wajigan waa buy it depends marka qaabka aad fahankaagu uu yahay intee koo ka soo calaameysata marka waxaa ka soo calaameysata high time frame BDRs iyo low high time frame high iyo high time frame lowgiisa calaameysatay marka waxaa ka soo heshay premium arrayga waxaa waa BDR ha ku soo galo okay BDR-gana waa isla naqaanaa waaba intaas inta lagu sheegaa market maker sell model buy model waaba intaas adoo marka waxaa ku darsataa fikirka high time frame-ka inaad ku base garaysid always aan isla fiirin marka qaybtan inta waxaan ugu qoran high time frame BDRs low time frame market maker sell model high time frame BDRs xalaashan haddii high time frame-ka aan ka soo aragno boxkan intriga la qaadanayo qaabka lagu base garayna aan ku sheegaa inta si fiican u fiir example 4 hour time frame ma aragnay 4 hour time frame-ka waxaan calaameysanaynaa current lowga hadda la joogo then waxaan fiirinaynaa dhaqaaqana kacay uu soo dhacay markuu soo dhacay current lowgan wuu noo calaamaysan Soomaan waxaan sugeynaa high-gii ugu dambeeyay in la jabsado boom waa la jibiyay high-gii ugu dambeeyay high-gii ugu dambeeyay markii la jibiyay maxaa sameynay dhaqaaqan lugta jabsatay candle-ka ugu dambeeyay selka aha
waa calaamaysanaysaa inta dhiga haddaad doontid waxaa dhahdaa order block ama meesha mitigation blocka ka raadso soo calaamayso break of structure ka dhigo kadib waxaa fiirisaa 3 kandhal 4 kandhal oo imbalance aan la soo mitigate garayn ama aan la soo fill garaynin then waxaad sugaysaa inta laga imaanayo zone kan key level waa high time frame key level high time frame hadii lagu imaado inta saan ay kuugu calaamaysan tahay 4 hour time frame ay ku tahay waxaa imaada haddana 15 minute fiiri marka inta fiiri meesha inoo calaamaysan waa high time frame kan soo ogaana 4 hour inay meeshan jirto ee tahay meel imbalance ah oo la sugayo in la soo mitigate garay waa kana marka 15 minute imo entry 15 laga raadsado soomaan then meeshan waxaa aragtaa fair value gap ka waa kana kan waay fair value gap weyn oo 4 hour waay waa kana hadana fiiri fair value gap ki 4 saac intuu noogu calaamaysan sidoo kale waxaa noo calaamaysan box scan 4 hour mitigation block waay waa meeshan current logo naga hooseeya suuqa maxaa ku base garaynay marka adeeg accumulation manipulation distribution time and price ka markii la trade garaynayo kala accumulation manipulation distribution soo ma ahan waxa ku base garaynaysaa qaabka marka loogu qaato entry meeshan maxaa aragtaa fiiri marka within 4 hour fair value gap la soo galay markii la soo galay inta maxaa la soo sameeyay sweep liquidity waa la soo wada qaaday markii lagu soo qaaday 4 hour ka maxaad sugaysaa dhaqaaq xoogan inuu inta ka kaco dhaqaaqan xoogan wuxuu ku sameynayaa break of structure markaas waxaa helaysaa 15 minute market structure shift haddii inta lagu jibiyo waxaa raadsanaysaa marka breaker ama fair value gap ama order block ama BDRs dan waxaa sugaysaa ilaa iyo bartaan entry intuu ka imaanayo inta ka qaadatay entry-ga xilliga entry la qaadanayo fiiri marka xilliga maxaa way fiiri isku fiiri haddaan ku calaameeyay qaabka sawirkan u base garaynay ama u sameynay fahankaaga saan ugu dhisnaa ugu talagalna fiiri qaybtan fiiri inta ka bilaabo accumulation intuu ka bilaabo Soomaan qaybtan ilaa iyo qaybtan lama trade gareeyo maxaa way waa accumulation phase maxaa sugaysaa manipulation intuu ka dhacayo oo looyadan dhan la soo cunayo meesha yaalo haddii la soo cuno high time frame BDRA la imaanayo waa 15 minute ya high time frame BDRA hadii lagu imaado BDRA meeqa intuu ku haynaa 4 hour iyo mitigation block fair hour fair value gap ki waana haysanaa mitigation block ina waa haysanaa 4 hour waa kana fair value gap ki mitigation block ina waa kana dan lacagta way imaaday hadda awoodid bartan ina heli kartid qaado ilaa laga gaarayo liquidity gan la soo ugaarsanay haygan inta laga soo qaaday way leeysan Soomaan waaba intaas xilliga la trade gareynayo marka maxaan niri waxaa la trade gareeyaa manipulation kan iyo waxaa la trade gareeyaa distribution kan labadan wajiga la trade gareeyaa okay adu marka cilmiga ku darso isticmaal fikirkan si fiican u isticmaal waxaan rajeynayaa hadda conceptigan isticmaashid fursad suuq ku dhaaftay inaadan arki doonin laakiin waxay ku xiran tahay fahamkaaga good iyo qaabka ula macaamishid waxaan ka sameyn doonaa part 2 insha Allah ta'ala haddii aad jeceshiin inaan soo badiyo oo part 2 aan u soo sameeyo let me know in the comment section soo dhawaada qaybtiisa kale oo dhameystiri doona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.